بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا ليال waxaan rabnaa halkan inaan ka soo jeedinno qayb yar oo nuga hadlayno dadka xanuunsan waxyaabaha lagu daweyn karo. qur'aanka ilaahay waa dawo, adkaarta nabi muxamed laga soo gaaray oo xijaabkaana waa dawo, laakiin qofka mar walba waxa la rabaa in uu isku daweeyo ilaahay diintiisa. diinta ilaahay marka la isku daweynayo waxay dawo kuugu noqon kartaa in aad diinta ilaahay sax u aaminsan tahay. haddii aad khuraafaad kale iyo balaayo kale aaminsan tahay, diinta ilaahay dawo kuu noqon mayso. waa in aad horta qof caqiido wanaagsan oo wax ilaahay diintiisu reebtay aan daba joogin waa inaad noqoto weeyaan. haddaad aaminsan tahay waxyaabo kale ku daweyn mayso diintu. haddaba qofku hadduu xanuunsado wixii dawo u ahaa, qof kastoo xanuunsan, khaasatan waxaan ka hadli doonaa oo iyagana aan sheegi doonaa adkaarta iyo aayaadka iyo awraadda ku qoran kutubaha cilmiga ama diinta ku qoran, oo qofku haddii uu suuxo ama uu waalan yahay ama uu sixran yahay ama cudur laga dareemo lagu daweeyo. waxaad og tihiin nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam, yahuuddu waxay isku dayeen nabi moxamed inay sixraan, waa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam. ilaahay wuxuu soo dejiyey 11 aayadood ama 2 suuradood oo la yidhaahdo mucawadatayn, suuratulfalaq iyo suuratunaas. labadaas suuradood aayad ka mida nabiga markii uu akhriyo, inxallad cuqdatun, gunud ka mida guntimihii loo xirxiray baa furmaysa baa la yidhi. waa dawo. nabigu markuu jiifanaya waxaad og tihiin sala allahu calayhi wasalam, bikulli leyla labadaa gacmood in sidaa u kulmiyo ayuu ku akhri jiray korkiisa 3 mar suuradda la yidhaha ikhlaaska, suuratulfalaq iyo suuratunaas. mucawadataad baa laisku yidhaahdaa. suuradaha 3daaba inta akhriyo oo korkiisa marmari jiray calayhi salaatu wasalaam, 3 maruna ku celceli jiray. waa dawo. waxyaabaha dawadaa waxaa ka mid ah, haddii qofku uu yahay qof suuxdimo qaba, ilaahay naguma ridee, dadka suuxdimaha qaba waxa lagu daweynaya ka bilaabaya. qur'aanku sidiisa wuxuu ka dawo badan yahay wax walba oo adduunka laga raadiyo oo dawo laga doono. laakiin marka la soo daalo in la yidhahdo bal qur'aan aan ku dayna maaha, waxa la iskaga fiirinaya ayaan laga dhigin, waa in asaga laga bilaabo wax walbaba. qofku haddii uu yahay qof suuxaya oo cudurka suuxdimaha ilaahay inta qabtaa ka badbaadiye, annagana naguma ridee, haddii uu qabo an yu'adana fii uduni lmasruuci 7 7 mar baa horta dhegta looga addimaa. aadaanka bahalka iyo jinka iyo waxa ku jira oo dhan way ku baxayaan weeyaan. waxaa kale oo la sameeya dushiisa 7 maraad, 7 mar baa waxaa lagu akhriyaa faatixada, 7 marna faatixada lagu akhriyaa. waxaa kaloo lagu akhriyaa lambarka 3aad 2 suuradood oo hadda aanu soo sheegnay, suuratul naas, qul acuudu birabbi naas iyo suuratulfalaq. waxaa kaloo lagu akhriyaa qofka xanuunkaa suuxdimaha iyo dhibkaa iyo jinka qaba, aayad kursigana waa lagu akhriyaa. waxaa kaloo lagu akhriyaa suuradda la yidhaah suuratu wassamaa'i waddaariq, kulligeed oo la dhammaystirayo oo si saxa loo akhrinayo, oo qof weese qaba akhrinayo, oo qof qalbi wanaagsan akhrinayo ayaa lagu akhriyaa weeyaan. waxaa kaloo lagu akhriyaa suuradda la yidhaahdo suuratulxashri, waa taqaanin qur-aanka, kulligeed maaha, laga bilaabo aayadda low anzalnaa haada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasaddican min khashyat illaah. aayaddaa laga bilaabo ilaa aakhiri suura, ilaa suuradda laga dhammeeyo weeye, taana waa lagu akhriyaa. waxaa kaloo lagu akhriyaa qodobka 7aad, qofkaas masruuca ah oo suuxdimaha marmar suuxa dhibkaa qaba, waxyaabaha lagu daweeyo ama xanuunka jinniga qaba waxaa ka mid a suuradda la yidhaha suuratu saafaad ama wasaafaad loo yaqaano.
وسورة مركا ليرا والتراها علماء أي دهان ووغا انت كبل لوضة أو قفك والسن لغو أخريو سورة دا لقب اللابو كل جد معها لقب اللابو آيات دا بقول تضباطا إيا التضباط فإذا نسل بساحتهم فساء صباح المنذرين آيات دا لقب اللابو إلا سورة دا لقب دميو أيا لغو أخرينيا وحكا لغو أخريا آيات كرسيغا انت تضبمر لأخريو oo biyaha tahliisha la yiraahdo lagu tufo ayaa qofka lagu rusheeyaa yafiiqu biidnillaahi buu kitaabku leeyahay inta haddaad samaydo wax walba ku jira jin hadduu ahaa il hadduu ahaa kulli waa ka dawoobaya shayga la yiraahdo ilaa cada ama isha ama qumaynimada Soomaalidu ay tiraahdo waxyaabaha lagu daweeyo waxa kamid ah oo ayadana hadda meeshan aan ku sii dareynaa haddii qofka looga baqayo waxa kamid ah آية كرسيغا إيا فاتحة آية كرسيغو وهل آية فاتحتنا وتضبع آيات وسديد آيات اسكوين صوماها إيا آيات وإيا كادوا الذين لقب اللعبو إلى رماتك صورة دا انت أسبع لغو أخرياه وأثنوا كد وبيا ويان وحيابها اللغو دويو قفكا حانونسا وحا كمدا oo dawada u noqonaya waxa oo qofka ama had sixir looga baqayo cudurka la yiraahdo jinka hadii looga baqayo oo kale midalan bismillaahir rahmaanir rahiim ba kamida adkaarta lagu daweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim ba lagu akhriyaa qofku haduu xataa waalan yahay ama cudurka uu qabo dhigta looga akhriyaa markaad ku akhrinayso dhigta ayaad ugu akhrinaysaa 41 afartan iyo كومر أياد بسين كل علنيسا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هدو صحدي مقبو هدو مجنون يهي هدو حنون كلقبو أفاق بإذن الله من سرعته من جنونه وسرعه والدا إيا الصحدي مها وكم معناها الرئيسانة يا إن شاء الله هدا انتا كو أخرده وحيابها كلاو اللقود دويو وقفك حنوصان قضبدا اللقود دويو دينت إلهي قرطي أنا هاي فكر بني آدم وحكمده أو كتبها النوجو قرآن بسم الله الرحمن الرحيم بعد آخرنا يساب بقول بعد كآخرنا يساب بسنك وحد كو آخرنا يساب قف والبو حنون صن حنون كودون هاقبو بقول بسنك كودول آخر وحان اللجود دائما تضبط مالين تضبط عرجودة كل علماء ده تضبط عرجودات يعني تضبط مالين والبو وحد كو آخرنا بسم الله الرحمن الرحيم أو بقول مالين والبا بقول مالين والبا بقول أما تضبط مالين كسي بدي هدي قفك الرئيس واي هدو كل رئيس تنا وبصيدي للربيبة تضبط مالين بدو ديسه قفكو هدو حنون سيهي هدي سحر لوغا بقيو عذر كلا هدو قبو بسن كاس تضبط مالين صعونية ومالين والبا بقول لغا آخرين وصلي النبي محمد لغو بالله بيو وصلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لغو ختم ايو تانا لغو دوية وحيابها اللي قد دويه كمتها عذر والبوقبو إلهي باكد دوينا بإذن الله الكريم وحيابها اللي قد دويه وحا كمتها ودينت إلهي أي نوع عديسي وأيقنا الدودة نبينا عليه الصلاة والسلام وحا اللوري قفحان صنبو صوب وقضي مركاسو قعنتا سيدا أمري ميريكتا قفك قعنتا صار الله مرشاه مركاسو النبي قد دعادا أخري اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقادر سقما تنوى الواقية إلهيو ضدك ربي قود أهايو إلهو حنونك قات أدوغ وحاتها إلهو عافي متك وحافية باتهاي عافي ماد متشرو إلا عافي ماد كاقموي عافي ماد أن عذر كريبين إلهو قفك الدوي انت واي معنى هيدو يعني أدوغ الدعاء آخري أذكرت هذا صح وآخره إله بكون دوينيه وحيابها اللي قد دويه وحا كمده والنبي جنا اللي جسوا جاري عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أبي عبد الله عثمان ابن أبي العاص صحابي اللي يرابه وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام أيو معناها صحابي جاسو حنون أصو شاكتي مركاسو النبي والله هضلي صحابي حنون كشاكتي أيو الله هضلي وحويري ضع يدك على الذي تألم من جسدك ما شاء أدو براروغا قفك النفتي سو اسدوين يوي اوغاو اما قفك ادوين يسا لغا رباه غعنتا صار ميشا كحنونيسا
saddex mar bismillaahi 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 dheh. toddoba marna waxaad tidhaahdaa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru. waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha laysku daweeyo aayadaha la yidhaahdo aayaatu shifaa asita, aayadaha dawada ee 6 aayadood ah. aayadda ugu horeyda waxa weeye waa aayadda ku jirta suuratu tawba, wayashfi suduura qawmin mu'miniin. aayaddaa waa la akhristaa. aayadda labaadna waxa weeye suuratu yuunus 57 aayadda ah, wa shifaaun limaa fi suduuri wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin. aayadda saddexaad oo caafimaadka loo akhristo ama qofka lagu akhriyo lagu daweeyo qur-aanka waxa weeye oo aayadaha caafimaadka la yidhaahdo fiihi shifaaun linnaasi inna fii dalika la aayatan liqawmin yatafakkaruun. suuratu naxli aayadda 69 lambarka ah weeyaan. aayadda afraadna waxa weeye wanunzilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa raxmatun lilmu'miniin walaa yasidu aldaalimiina ilaa khasaaran. waa aayad ku jidha suuratu lisraa 83 aayadda ah weeyaan. aayadda shanaad waxa weeye suuratu shucaraa aayaddeeda 80aad, wa idaa maridtu fahwa yashfiini. aayadda ugu dambeyda aayadaha caafimaadka waxay ku jirtaa suuratu fusilat aayadda 44aad, qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaaun. aayadahaasna waa aayadaha caafimaadka loo akhristo. dawooyinkaas iyo kuwa ka badan baa jira, laakiin intaas baan rabaa inaan hadiyo uga dhigo. inta xanuunsan oo dhan allaha nagu daweeyo, ilaahayna idinku daweeyo. waxayna noo tahay fii sabiili illah. dhammaan qof walbo xanuunsan allaha daweeyo. hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.